We're following the ice cream truck, and I want to show dadka oo maaragtay qurbaha jooga in ay wadankooda u soo noqon karaan oo wax u qaban karaan shaqo abuur ugu sameyn karaan ugu dhiirin gelin karaan dhalinyarta iyo dadweynaha baba in ay wadankooda wax u qaban karaan. So the owner of this ice cream truck I heard is from England, from UK, and he came back to do this business, and it's amazing because I am the only person who didn't, hear this. As you can see the earlier footage, you could see that I was leaving my home and the ice cream truck was basically parked actually right next to my house. And I heard the music and I was like, oh my God, what is that? What is that? That sounds like an ice cream truck, but it's impossible to find an ice cream truck in Bosaso. What are you talking about, right? But it just was amazing because it was actually an ice cream truck. And I'm fascinated by this. So you'd be thinking like, why the hell is she stalking the ice cream truck? I am stalking him because I want to show you that with an idea that you have, wax ma aragtay qurbaha lagu sameyn jiray ama aad arki jirtay ma aragtay in oo yarde haddaad wadankaaga kula soo noqotid ideahaas aad ku abuurtid aad tirahdid okay, I'm gonna do that. I'm gonna show you how fantastic that is and how beneficial and profitable it is for you and for the people. He doesn't just do ice cream, he does smoothies, he does all these sorts of drinks Bosaso. And Bosaso are very hot. 6 months, it's extremely hot. And so obviously, qofku imaanayo in front of your house kaaga oo abitaan qabow ama ice cream macaan ku siinayo, and you don't even have to drive. You don't have to go look for it at all. I think the idea is amazing. It made it easy for us anaga. By the way, if you haven't realized it, I'm driving and I'm recording, so it might be out of focus. I'm sorry, but I'm doing my best. This area waxaa la yiraahdaa Xerta in Bosaso, and according to the ice cream owner, he said waxaa weeye one of the nicest places where people actually, expect him, I guess. It'll be weird because they'd be thinking, a girl who's driving and recording? What? Okay. I think he's pulling up here, where we're probably gonna pull up. Maybe in front of him? No? Nah. Let's see. What is the best way to pull up? Maybe in front of him, yeah. See, literally, we just came here and pulled up, and people are surrounding the truck already. So you guys, this is the owner of the ice cream truck, and we're gonna ask him a couple of questions because I really feel excited about this. Magacaaga noo sheeg. Mahmoud. Mahmoud, xagee ka timi? UK. So, ice cream truckana keentay Bosaso.
maxaa kugu dhiirigeliyay waxaan ku dhiirigeliyay anuu boosad baan hay asalahan waxaan ogaaday magaalada inay u baahan tahay ice cream iyo waxyaalaha qabo magaalada maadaama magaalada ay magaalo kulul tahay marka qof walba deegaanku ka yimid waxa uu ka dhigo uu geeyo ka fikiraya waaranta tijaabada marka aad bay u fiican tahay dadkuna aad u soo dhaweeyay magaalada dadka diasporada ama qurba joogta maxaa ku waanin lahayd maanta kuwaanaya dadku waddankeenu waxa weeye nabadgelya ka jirta maamul baa ka jira horumar badan baa yaala opportunity badan baa ka furan waddanka dhaqaale ma laga sameeyaa okay idea fiican la yimaada waddankeena ayaa ka fiican kalaamid ahaan nolol ahaan si kastaba isaga ayaa ka fiican dhaqaale qof raadinaya dhaqaale halkan ka fiican dadku waddanka ku soo noqdeen idea ha la yimaadeen aqoon ha la yimaadeen caqligooda iyo dhaqoontooda iyo dhaqaalahooda waddanka ha gasheen dadka shaqa ha u abuureen waa inay waddanka dadku gadaal ugu soo noqdeen maasha allah aad baa u mahadsantahay maxamuud thank you